maana arag hadda meesha aan jooga waxa weeye duunyo waan ka samiray dadkiiba hadda wuxuu ku jiraa qiila waqaala haddii aan lala soo gaadhin toddobaadkan biyo iyo baadna wax badan inuu tegi doonaan u malayn. waxaad iga warantaa gabadhan walaashaaya ee libaaxu uu helay halkuu ka helay xaggayse iyadu ku socotay walaalo meel loo jirta 30 kilomitir yay ayagoo haweena oo 10 qofa yay amnistan baa u arooreen meeshii biyaha laga cabahayay oo gudhay bay u tageen waxay galeen marka meel hul oo toosh in lala gala mooyeene aan si kaleeta looga cabi karin naf baa ku eriday way galeen ayagiiba hulki dhexdiisii bay ku kala dhumeen marka sidaa darteed buu ku helay bahalkii ayagoo cararahayeen marka gabadhu yay meel ka dhacday gacan bay marka ka jabtay marka dhaawaca gaadhay waxa weeyaan uun jabniinkaasi ma aha qaniinyo uu bahalkii gaadhsiiyey libaaxa ahaa qaniinyo muu gaadhsiinin laakiin haddee sidan oo kaleetu ooga soo kordhacay ilaahay baa afkiisi ka duway laakiin way sigatay oo dhibaatada gaadhay waa jabitaanka waxayna ka cararahayeen libaaxa way kala fiigeen oo haweenkii barbaa habeenkii dhaxay qayday lagu helay kolka ay dhaanka dooneen ma dhabarkay maacuunta ay biyaha ku soo shubanayeen ku siteen mise gaadiid bay wateen maya dhabarkay ku siteen meeshu waa meel fog gaadiid inta badan haddii loo sii qaado waxaa laga yaabaa waqti dheer inuu qaato waxay islahaayeen marka bal inaad iftiin imaan kartaan umayna suuroobin meeshii biyaha laga cabi jiray oo gudhay u tageen meel kaleetoo hul ahoo toosh in lala gala mooyeene aan ruux bini aadama haweynaynin bay galeen naftu waa wax baas sidaa darteed buu marka bahalku show meeshuu ku jiray oo ooga horreeyey wuu ka hor imaaday marka deedna sidaa darteed buu eega nabarku ku gaadhay iyada iminka xaaladeedu waa sidee dhakhtarse ma la geeyey meelaha ka dhowdhow dhakhtar kale lama geynina gacantii waa la duubay waa la kabay dad farsamo yaqaan oo farsamo duurka yaqaanaa loogu yeedhay waa la duubay laakiin si inkaaran bay u qandhaysan tahay oo hadda hadal ma geri karto deegaanka aad joogtaan ee jimbac xataa xanaano caafimaad oo xataa wax fudud laga heli karaa idinma dhowo miyaa maya meesha aan joogno caafimaad saa ma laha gabadh naydhisahoo beri dhoweyna soo tababaray baa joogta nin yahow si ay noqotaybana daawadiibaaba yaaba khatar ku jirta oo daawo fiican waddanka lagama helo haddii duunyadiina aad sidaa uga samirteen dadkiina ay aad u liito sidaad sheegayso meelaha idiin dhowdhow deegaanadaas haddiiba aad biyo ka heli kartaan ma waxaa tabar baa idiin diiday inaad guurtaan oo gaadiid aad ku guurtaan baan jirin mise halkan baad wax ka naawilaysaan in gargaar idinku soo gaadho walaalow horta deegaankaoo dhan baa abaartu maanta ka siman tahay meel aan hadda annaga noo dhowo aan ku cararro oo aan nidhaa meeshaa aan wax ka raadinno nooma dhowo maamulkii dawlad deegaanku kollay way ku dhagaysanayaan maxaad iyagana ka codsan lahayd waxaan ka codsanayaa maamulka madaxweynaha iyo cid allaale ciddii wax qaban kartaba inayna soo gaadhaan baan aad iyo aad uga codsanhayaa waxaan codsanhayaa duunyo way naga tagtay dadka in la badbaadiyo biyo iyo baadba lala soo gaadho